السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada barnaamijkeeni dulmar oo aan ku dulmari jirnay muuqaalada dhaadheer sida boodkaastyada iyadoo muuqaalada wixii 10 daqiiqo ka badan maanta waxaan dulmaraynaa ama aan soo koobis ku sameynaynaa muuqaalkan hortiina ka muuqda waxaana channelkiisa soo dhigay Cumar Inshaar Ogaasho gaar ahaan channelkiisa boodkaastiga ee Fandal Podcast muuqaalkan markaa saddex dhinac ayaan ka istaagi doonaa ama saddex qodob oo aad muhiim u ah oo muuqaalkan ku soo qaatay ayaan falanqeyn doonaa qodobka koowaad waxa weeyaan horudhaca barnaamijka iyo magaca barnaamijku wax xambaarsan yahay qodobka labaad wuxuu noqon doonaa ujeedada barnaamijka uu ku saabsan yahay oo ah saxaafadda Soomaaliyeed iyo qaabkay u liidato iyadoo aan ku dari doono waliba qodob uu ka tagay ama laga yaabo inaanu dareensaneen oo aad muhiim u ah rabana in lagu baraarugo qodobka saddexaadna wuxuu noqon doonaa eray badana uu ku soo celiyo kullee intiina ku xiran wada aragtay waan filayaa eraygaas oo ah dhulka la haysta ee Soomaali galbeed run ahaantii aanu san aaminsanahay inaan kaga fikir duwanahay ama ay tahay arrin qalad ah in la yiraahdo dhulka Soomaali galbeed ama Soomaalida Itoobiya waa dhul la haysto kullee aan falanqaynteeda iyo fikirkayga waa la wadaagi doonaa waliba hadii aanu ku xadgudbayn isaga balse ugu horreyn saaxiib waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashadaada like iyo subscribe taada waa haddii aad saartay commentigan igula wadaag fikirkaaga muuqaalkana la wadaag asxaabtaada mahadsanid ugu horreyn marka saddexda qodob aan idin sheegay saaxiibayaal intaan u gudagelin waxaan rabaa inaan horraac ka horeysiiyo anigu muuqaalkan ujeedada aan u falanqeynayo ma aha in aan isagu lid ku ahay ama aan neceb ahay ama dee aan iska radinayo qofkana bini'aadamkana waa kala fikir duwanaan kartaan oo Soomaalida badan waxa arkaysaa dad qaar iyagu ay ku leeyihiin Soomaalida badan waxa laga yaabaa inaad aragto qof laba qof oo kala fikir duwan hadday arkaan waxay moodaan inay isleenayaan ama is neceb yihiin laakiin sidaa ma aha xaqiiqadu qofka haddii uu ka hadlo arrin caam ah oo bulshada ka dhaxaysa isla markaana uu falanqeeyo falanqeyntaasi sida loogu ra'yi duwan yahay waa in lala wadaagaa ama isaga laftiisa la siiyey falanqeeya hadalkiisa wax dhibaato ku jirtana ma jiraan maadaama dee waxa dadka ka wada dhaxeeya isagaba dee uu ka hadlay waliba si public uga hadlay اوكي ugu horreyn tan ku horeeyay barnaamijka wuxuu ugu magac daray hudhudka sababta ugu magacaabay waxa weeyaan waa shimbirkii Nabi Suleymaan marka asaga wuxuu yiri maadaama uu yahay shimbirkaasi wariyihii ugu horeeyay saas ayaan ugu magac daray anigu si ila muuqato shimbirkaasi de wariye mu ahayn wuxuu sardoon shimbirahana sardoon ayaa loo adeegsan jiray mararka qaarna waxa loo adeegsan jiray in fariimaha ay gudbiyaan intaan waliba gaar ahaan applicationada internet waxaan ay soo bixin sida postman-ka oo kale postman-ka ee boostada ka shaqeeya ninka boostada ka shaqeeya oo kale ay ahaayeen oo fariimaha ay loo dhiibi jiray mararka qaarna waxa loo adeegsan jiray qaab sardoon ah labada qaabna waxaan hadday saxaafadda way ka fog yihiin haddii aan u imaado qodobka labaad oo ah qodobka barnaamijka uu ku saabsan yahay ee saxaafadda Soomaaliyeed isagu markaa wuxuu yiri saxaafadda Soomaaliyeed wax ra'yi ah ay leeyihiin ma jirto waa run wuxuu yiri afkaarta reer galbeedka saxaafadda reer galbeedka ee bidixda fog ayay ku hadlaan eray bixintoodana waa isticmaalaan waa run wax qiimo ay leeyihiin ma jiraan buu yiri waa run qodobkan ku diray markaa sidaan ku dirin waxa weeyaan saxaafadda Soomaalida ama saxaafad ku sheega Soomaalida saxaafad ma aha dadka ay kala geeyaan si u kala geeyaan in waqtiga u fiirsato xilliyada casarka iyo fiidki ay wararkooda soo galaan warkooda headline-ka ugu weyn waxa weeyaan caaqil hebel u jawaabay beel hebel oo ka cabanaysa saami qaybsiga xisbi hebel ama dawlad hebel ama maamul goboleed hebel ka cabanaysa iyagoo markaas soo qaadanayo oday caaqilo baa ka horadsita oo wuxuu ku hadlayo dee adiyaabayso naxayso Soomaalinimo iyo dawladnimo iyo ixtiraam iyo madaxweynenimo iyo wax ixtiraam soo xataa dawladda aan u haynin dadka Soomaaliyeed waxyaabahaas ay marka saxaafaddu ka macaashtaa oo ay soo gudbisaa xataa mararka qaar waxay sameeyaan in tusaale ahaan caaqil ayaa wuxuu ka hadlayaa gobol ama meel magaalo ah saxaafaddu la hadlay maaha mid kale ayaa waxay raadinaysaa caaqilkaasi caaqil iska agdhow yihiin reer ahaan oo ka fikir duwan dadna waxay dhahayaan caaqil hebel oo meel hebel fariista galabtii ama hodheel hebel tusaale ahaan galabtii fariista isagaan wareysi ka soo qaadayna caaqilkay u tagayaan kadibna waxay ku dhahayaan caaqil waxaan rabnaa inaan arrimaha Soomaalida ka wareysano hayuu dhahaya moogta tusaale ahaan dadna hadalka waxay ugu bilaabayaan ka waran caaqil hebel ayaa shalay ka hadlay arrin noocaas wuxuuna yiri sidaa isagoo markaasi eedeeyay dawladda ama maxay sidaas sameeyay caaqilkan markaa isagoo markiiba aan ka fiirsan kabtan saandalka la hordhigana hadee aan ka fiirsan ayuu intuu xidho ama uu gashto ayuu ku soconayaa caaqilka kale si shaqsiyan intuu u weeraro ayuu leeyahay ninkaas waa nin sidaasa maxaya teeda kale waxaan leeyahay reer hebel saa maaha yani waxay ka macaashaan waxa weeyaan qabyaaladda kala irneynta iyo isku dirka dadka sidaan wada ognahay in qabyaaladda waa wax lagu isku khilaafsan yahay qabyaaladdu maaha wax la isku raacsan yahay siyaasaddeena waa siyaasad qabyaaladaysan oo run ahaantii aan isku raacsanayn wax afkaaro oo ku jiraan aanay jirin saxaafaddu waxyaabahaas oo ay ka macaashtaa attentionka dadka inay soo jiidato ayay rabtaa saxaafaddu waxa kaliya attentionka dadka lagu soo jiidan karana waxa weeyaan in qabyaalad loogu sheekeeyo waayo shacabkeena waa shacab wacyigooda aad u hooseeyo isla markaana ka hela qabyaaladda iyo waxyaabaha la midka marka lasoo hadal qaadaba daneeya oo dopamiinkooda maxaa la qabsaday
haddii aan u imaado qodobka saddexaad oo ah qodobka ugu dambeeya badanaa waad aragteen oo falayaantiina ku xiran wuxuu aad ugu soo celceliyaa Soomaali galbeed ama Soomaalida Itoobiya anuu sidaa un baan oran karaa dee waa qaxitaanka Kenya u hayo badanaa isagu NFD ma soo qaatay Soomaali galbeed ma soo qaataa sababtoo NFD uu ilaawo ma aqaano mar un buu soo qaataa sida muuqaalkan hal mar ayuu ku soo qaatay badanaa ma soo qaato waana isku qadiyad run ahaantii oo laba dowladood oo Kristan ay ku hoos jiraan labadoodaba haddii aan u imaado markaas Soomaali galbeed waa Itoobiyaan rasmi ah sababsay ku yihiin waxay ku yihiin jabhaddii dhiigga u shubi jirtay u dagaalami jirtay duurka ugu jirtay u dhaawacantay u dhimatay u gaajootay maanta Itoobiyaannimo ku qanacsantay ONLF waana xisbi ama urur siyaasadeed ka diiwaan gashan Addis Ababa aniga ama Cumar ama qof kale Yurub ku nool dhiig uma daadin muxuu ahaay dadkaasi doorna uma gelin uma dhiman uma gaajoon uma dhaawacmin dadkii u dhaawacmay inta sarafaada u soo maray yaqaanay waxay ahaan jirtay waxay tahay iyo waxay noqon doonto Itoobiyaannimada ku qanacsan yihiin waxa Itoobiyaannimada ku qanacsan dhalintii wax ku baratay ee sagaashamaadkii dhalatay ama sagaashamaadkii soo aqlisay ama horaantii 2000 dhalatay tusaale 2002 qofka dhashay maanta waxa uu 20 jir waa gaashan qaad weligiina calan Soomaaliya meel ka tagay ma arag wax Soomaali weyn la yiraahdo ma arag laguma sheekeeyo badanaa Itoobiyaannimada xataa lagu sheekeeyaa oo iskuulkiisana wax lagu dhigaa xataa lahjada ama xaarada oo officialka Itoobiyana ah luqadda officialka Itoobiya looga hadlaa dadkii oo dhan Itoobiyaannimada ku qanacsan waxa ku qanacsan bulshada qaybaheedii kala duwanaa haddii ahaan lahaayeen dumarkii caruurtii dhalinyaradii cuqaashii tujaartii ilaa beerkan ambiyeen dhaqankii qof walba oo degan dowlad deegaanka Itoobiyaannimada ayuu ku qanacsan yahay haddii marka inta meel soo istaagto aad tiraahdo waa dad la haysto waa dad madax laga haysto waa la gumaystaa dhulka maqan in la haysto yani iyaga duritaan ku tahay adna waxaad noqonaysaa qof ka xun walaalkii wax uu go'aansado walaalka hadduu go'aansado dee inuu kaa go'o ama dowlad kale uu raaco waayo walaal hortaada khayr Allah kaa siiyo dheh anoon durayn ama aan ka soo horjeedin isaga culaadinayn kuna xadgudbayn shakhsiyadiisa ayaan leeyahay qodobkaasi waxaa fiican inuu iska dhaafo sida uu leeyahay dadka waa la haystaa dadka lama haysto walaal maankooda xora ayayna Itoobiyaannimada ku qanceen markii Soomaali kale waayeen barnaamijka marka saaxiibeel anoo dulmaris ku sameynayo ayaa waxaan jeclaystay inaan saddexdaas qodob falanqeeyo intaas ayuu ku ogay barnaamijkeena saaxiibada halkan soo gaadhay muuqaalkan sii sheer garay asxaabtaada la wadaag tan iyo muuqaalka dambe intaan ku kulmayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh